marka ilaahay hab xasuusana mar walba qofka muslimka qofka kale muslimka waa walaalkii inuu dulmin buu nabigu inuu dulmin inuu san quursan inuu san maaragtaan cadawgiisa u gacan galin inuu san maaragtaan u hiilin waayin oo garab ka waayin qofka muslimka waa in loo hiiliyo ama dhaqaalahaaga ugu hiili ama hadalkaaga ugu hiili oo madluumka dulmiga ka daayadhe ama dhiigaaga iyo naftaada dadka muslimiinta iyo diintooda ku difaac ama maaragtaan ducadaada ugu hiili ducadaada u ducee qofka muslimka wax dhibaayo qofka muslimka ka ilaaliya nabigeena calayhi salaatu wasalaam agtiisa ayaa nin asxaabiya nin kale ku xantay markaa buu nabigu ku yidhi maa aamana bilqur'aani man istaxalla maxaarimahu cajiib qur-aanka maba aaminin oo ma rumaynin wixii qur-aanku u xarimay qofka xalaashada qur-aanka ma rumayn buu rasuulku yidhi qur-aanku muxuu xarimay walaa yaqtab bacdukum bacda in dadka muslimiinta dhexdooda ay isxantaan qur-aanku u xarimay in dadka muslimiinta ceebahooga la daba guro qur-aanku u xarimay in qabyaalad la huriyo qabyaalad laga shaqeeyo qur-aanku u xarimo ma ogola shariicadda islaamka laa tarjicuu bacdii kufaaran buu nabigu yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga dabadee gaalnimadiiba ha ugu noqonina buu nebigu yihi hee waa maxa gaalnimada nebigu inooga digaayo waa marka aad isxalaalshataan dhiiggiinna aad isxalaalshataan inigoo islaam sheeganaya markaad qabaa'il isku laysaan dhiiggiinna qoloba qola ay xalaalshato gaalnimadii aan niiga yeedhay baa dib ugu noqoteen weeyaan macnuhu gaalnimadii baa dib ugu noqoteen qabiilka waad ka dhalatay ku abtirsan laguma diidano laakiin qabiilka ha ku dhaqmin dhagaysta insha allah dhagaysta qabiilka laguma dhaqmo diinta islaamka lagu dhaqmaa qabyaalada diintu ha kaala weynaato ragga soomaaliga matala maanta shakhsiga soomaaliga maxaa la weyn waxaa la weyn qabyaalada la weyn walciyaadu billah dad badan oo fiican way jiraan way nagu jiraan laakiin inta badan maanta waxaa laga yaabaa qabyaalada la weyn yar aamusade yar dhagaysta insha allah hadalka ilaahay baan ka hadlaynaa sheekh ilaahay hadalkiisa wax ka weyn ma jiro sheekh waidaa quri'a alqur'aanu maxaa ku xiga hada huwa xukm waa waajib inaad dhegaysta hadalka nimaka dhegaysta walaalayaal ma aha yani meeshan uma iman aroos ama maaragtaan xaflada ma waa diin waxaan ka hadlayna diin inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum baa la rabaa inaad ku fadhiisatay majliskan rasuulku mar buu yidhi fadhiista cabdullaahi binu rawaax oo dariiqa maraya baa fadhiistay icdaadda dhexdeedii diintu waa ismaqal iyo kala dambayn markaa buu nebigu halkaa ka arkay cabdullaahi soo geliyey buu yidhi maxaa icdaadda dhigay markaa buu yaa rasuul adigoo fadhiistalaan maqleen miyaan dhaqaaqaa buu yidhi markaa buu nebigu yidhi zaadaka allahu xirsan buu yidhi calaa tawaaciyati illaahi wa tawaaciyati rasuulihi dadaalka aad ugu jirtid ilaahay rasuulka inaad adeecdo allah kuu siyaadiye buu rasuulku ku yidhi diin marka laga hadlaayo waa in dhaqdhaqaaqa la joojiyaa waa in qalbiga iyo dhagaha la soo jeediyaa waa waxay soomaalidu diintu u gali laadahay bay kamid tahay taasi maanta waa naqaanaabaa diinta naga dhacdhacsanay ninka hadhow dagaal qabiil markuu dhacana wadaadkiibaa qabiilkiisa u fatwoonaya oo leh xaqa inniga ku taaganoo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid wayaana galoo si celiya buu leey ree hebel فأوردهم النار وبئس الورد المورود إلى هاي لأن تولكي نار تكو أرورينا يا مركز دكتور لفها اسبيتالك حمر وحو كا داوينيا cudurada ku dhaca lafaha seedaha iyo margiyada misku aragtaa kala goosyada oo ku xanuuna sida jilbaha xusulada kala gooska gacmaha anqoyada iyo kala goosyada cagaha sidoo kale misku aragtaa xanuun murqaha
xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah wixii faahfaahin la barada hoos ku xusan